السلام عليكم أصحابتي كوهران جنالكم سويفو بسودو هذا جنالكم سويفو هدي أكو سودو جنالكم حاجة فرقا عسنان إنا سبسكرايب صارتو فيديونا آلاك لهذا maanta muuqaalkeen wuxuu ku saabsan yahay sidee ula soo degi karaa GB WhatsApp oo hadda bashaashadeeda aad ka aragtaan. GB WhatsApp waa application ku sahlaya in aad WhatsApp u isticmaasho sidaad doonto. waa application oo feature badan leh oo kana fiican WhatsApp ka caadiga جرامك يا الله هلا بلاي ستور كا لكما هلا بلاي ستور كا لكما هلا وحالا هلا واتساب كا بحالكي جرامك يا الله هلا waxaa qoraysaa WhatsApp GB ayaa qoraysaa last version ayaa ku soo saaraya GB WhatsApp waxaan oo Play Store ku soo qana beewan mid kale ayaa soo degsanaysaa update-kiisa ayaa soo degsanaysaa kan markaad soo degsato waxaa ku tusayaa feature-ada iyo waxyaabaha uu leeyahay waa galaysaa feature-ada iyo waxyaabaha uu leeyahay ayaa ku tusayaa feature-ada iyo waxyaabaha uu leeyahay ku tusayaa waxaad tagaysaa qaybta setting-ka oo geeskaas oo saddexda calaamadood GB setting-ka ayaa tagaysaa markaad tagto waxaa ku dhufanaysaa meesha ku qoran tahay privacy and security last scene. hadda last scene-kayga waa qarsan yahay hadda qof kale hadduu last scene-kayga soo fiiriyo hadda online ahay WhatsApp-ka ku jiraa laakiin qof kale markuu soo fiiriyo waxay ogaanayaa inaan online ahayn oo maalintii aan bahashaas jidkii qadkii ugu dambeysay maanta bahashaas qad jidkii waxay ahayd 9 February ahayd ilaa hadda inaan WhatsApp soo gelin ayuu ka dhigayaa. Connectis ayaa ku soo haray. Connectiskan waxaa waaye mataqaanaa qofka markaad la hadlaysid oo qoraal kuu soo diro oo qoraalkiisa aad fiiriso hay bluetooth ka qari waxaa waaye qofka markaad la hadlaysid waxaa ka qarinaysaa bluetooth macnaha calaamada labada buluug ah ayaa qarinaysaa taasoo ku dhig muuqaalkan in muuqaal qoraalkaas inaad arkin. tusaale muuqaalku uu soo diro kale WhatsApp wuxuu ogeysiinayaa haddii aad daawatay oo muuqaalkaas qoraalkaas aad akhrisay wuxuu qofka kale ogeysiinayaa inuu arkay oo calaamad buluug ah laba ayuu saarayaa balse adigoo arkay oo aqriyay ayaa haddana buluugaas la arkaynin. waxaa ku soo haray group privacy ayaa ku soo haray. group privacy isna waxaa waaye sidoo kale sida hadda aan kuu sheegayay headsetting microphone-ka iyo typing-ka iyo recording-ka taa ka qari kartaa wax walbo intaas waa faahfaahin ayaan rajeynayaa. marka custom privacy waxaa u gelgelaynaa wicitaanka ay soo wici karo haddaad doonto waxaad dhihi kartaa everyone ayaa dhihi kartaa haddaad rabto waxaad dhihi kartaa my contacts haddaad my contacts aad dhihi kartaa haddaad qofna waa dhihi kartaa oo qof uu soo wici waa qeybaha ugu fiican yahay soo gaarnay disabled forwarded wiligaa cibaan ina soo qoraal ina soo forwarded gareysay qofka markuu yidhi war waxaan aan iimu soo qorno qof ayaa kasoo qoratay yaa waaye macnaha waxaa waaye forwardedka uu qarinayaa baalkan baasha kalena waxaa waaye anti-deleted message qofka markuu qoraalkaa deleeto adigoo maqal wax ku soo qoro kaa deleeto application u baahnidba midkan ayaa ku hayo show blue ticks after reply-ga marka qoysha qofka oo qoraalku ku soo qoray u qorto buluuga ha soo fuulo labada calaamad cadaal ah xireen ha soo fuulo ayaa leedahay okay way fulantahay waxaa ku soo haray marka had few status or not tell contact that you have viewed their status ha u sheegin asxaabtaada in statuskooda aad daawatay qofka statuska ayaa iska daawanaysaa kabacdi isaga kuma arkayo inaad daawato kale waa ka qarinaysaa. waxaa ku soo haray marka anti-delete statuska qofka uu deleedo adiga kaaba bixi doono oo 24 hours uu kugu jiri doonaa
marka intaas waxaa waaye privacy waaye. waxyaabaha kale uu leeyahay waxaa kamid ah themes ayuu leeyahay. themes waa kuwaana united themes ayaa leedahay. new artist ayaa soo degsanaysaa, themes kaaletid ayaa soo degsanaysaa oo whatsappka ilaa waxaa waaye 4,002 waaye. midka ugu qurxoon ayaa soo degsanaysaa. whatsappkan waa loo bagay oo GB leeyahay, marka waxaa jeclaan inaad soo degsato haddii aad jecel whatsappka. wasalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.